munaasibadan oo ka dhacday maanta magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'addaasi Xamse Cabdi Ibraahim. munaasibadan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada ee Somaliland waxaana uu ka warbixiyay runtii maanta waxaynu xilka u kala wareejinaynaa gudoomiye ku-xigeenkii hore iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub. runtii Cabdiwaasac aad iyo aad baan u sii sagootiyeynaa wuxuu ahaa walaal qaaliya oo runtii institution-kana ku qaaliya. Cabdiwaasac runtii waa nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. insha Allah muddadii aan wada shaqaynayna wanaag iyo akhlaaq wanaag ay runtii ku sifoobay. waxaan leenahay Cabdiwaasac insha Allah meel ka sareysan ku rajaynaynaa. dhankooda iyaguna halkaasi waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland Xamse Cabdi Ibraahim iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee hay'addaasi Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf. waxaan idinku soo kordhin doonaa dardar cusub, hal-abuur cusub iyo aragti cusub oo daaranun maxaan ku dhahdaa in aanu dogob kala sii saarno ama aanu hore uga sii soconno halkii la soo gaarsiiyay. kolley waxa la yidhi balaayo afka lagama dhowree dee waa la kala fadhiyey, laakiin insha allahu maamulkayaga cusub waxaa kaga talageli doontaan hogaamiyaal wada jira ee aan kala jirin insha allah biidni illaahi alkariim. hogaamiyaal wada fadhiya ee aan kala fadhiyin, inaynu jawi nabdoon oo isfaham leh oo is-ixtiraam leh ku shaqeyna haddii ilaahay ka dhigo naga go-an. taa idinkuna inaan ugu gacan siisaan baan rajaynaya haddii ilaahay ka dhigo. Xamse Cabdi Ibraahim oo qurbaha joogay oo qurba jooga oo qolqol jooga oo dal jooga oo isaguna khabiira oo wax badan fahmaya. marka insha Allah anigu hadalkayga waxaan ku soo gunaanidi lahaa si milgo iyo sharaf iyo cizi leh ayaan xilka ugu wareejinayaa mudane gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada Xamse Cabdi Ibraahim. ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa maanta maadaama tahay bari arafa lagu jiro oo maanta aniga laftaygu aan soomanahay inuu dhammaantiin ilaahay xilkaas uu inaga asturo. gabagabadii munaasabadda xil wareejinta gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland ayaa halkaasi waxaa xilka u kala wareejiyey Mukhtaar Maxamed Cali gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Somaliland, isagoona ugu hambaliyeeyay gudoomiye ku-xigeenkii hore shaqada uu ka soo qabtay hay'adda, isla markaasina soo dhoweeyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'addaasi. xafladan ama madashan aynu joognaa maanta aynu isku nimid waxa weeyaan xaflad sagootinta gudoomiye ku-xigeenkii hore Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf Alamagan iyo soo dhoweynta gudoomiyaha ku-xigeenka cusub ee hay'adda Xamse Cabdi Ibraahim. ma kala maqnin qof kasta oo institution-kan ka soo shaqeeyay ama ku-xigeenada iyo gudoomiyaha dhammaan iga maqnaan maayaan. dhammaantiin waad ila shaqayn doontaan haddii la yidhaahdo. khibradda iyo waayo aragnimada iyo waxaad leedihiin waa idiga qaadan doonaa. rag kale tegayaana ma nihin insha allah. gudoomiye ku-xigeenka cusub Xamse Cabdi Ibraahim waxaan leeyahay Xamse soo dhow walaal. mas-uuliyad bayna saaran labadeennaba iyo commissionka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan qof kastaba mas-uuliyad baa saaran. mas-uuliyaddayna saaran way ka culus tahay mas-uuliyadaha kale. 9 sano ayaan runtii anuu agaasimo guud ahaa, 4 wasaaradoodna waan soo maray. laakiin waxaad moodaa maanta xilkan inuu igaga culus yahay oo igaga cabsi badan yahay. Cabdirashiid Cali Bare, MMTV, Hargeysa.